wacan oo wanaagsan daawadayaal maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay filim khiyaali ah oo lagu magacaabo ninkii uurka lahaa. daawo oo iska taxadar. Sergey waa wariye waxa uuna ku nool yahay Ruushka asaga iyo xaaskiisa Diana waxayna ku dadaalayeen 2 sano ee ugu dambeysay in ay cunug dhalaan, laakiin waa u suurtagal weysay. muuqaalka xiga waxaynu arkaynaa Sergey oo dhakhtar la joogo asagoo ku andacoonayo inuu 2 san raadinayay inuu cunug dhalo, laakiin u suurtagal weysay. dhakhtarka ayaa kula taliyay inuu dadaalo. waxa uuna sidoo kale u sheegay inuu dulqaato. waxa uuna wacay saaxiibkiisa oo lawyer ah waxaana lagu magacaabaa Zora. Zora waxa uu ku guuldareystay 8 ka mid ah kiisaskiisa dacwadeedka ee loo dhiibtay, taasi oo gelisay xaalad dhaqaale oo aad u daran. waxa uuna haystaa 2 inamood waxa uuna doonayaa inuu dhalo inan. Sergey waxa uu baar kula kulmay saaxiibkiisa Zora. Zorana waxa uu sheegay in xaaskiisa ay uur leedahay ayna rajeynayaan inuu inan u dhashto. waxa uuna ku sababeeyay in uu kaba buud xirtay marka uu xaaskiisa u takeeyay. waxa uuna u sheegay inay saas ku dhasteen asaga aabihiisa iyo awoowihiisa. maalinta xigto waa Valentine. Sergey iyo Diana waxay ku wada kulmeen meeshii ay 5 sano ka hor markii ugu horeysay ay ku kulmeen. kahor intuusan xaafadda aadin, Sergey wuxuu gatay kaba buud ah. waxa uuna xaaskiisa u tagay asaga oo kaba buud xiran, asagoo aaminsan inuu inan u dhalanayo. marka uu seexan waayay daaqadda ayuu aaday. waxa uuna arkay xidig dhacayo, wuxuuna isdhahay ducadaadii waa lagu aqbalay. maalintii xigtay waxa uu bilaabay inuu turjumo show ka hadlayo digaag qiyaasi karto tiimka guuleysanayo ayadoo dhalayso tirada ukumaha ee tiimka ku guuleysanayo. asagoo showga ku dhex jiro, Sergey waa uu matangay, waxayna noqotay dhacdo cajiib ah. habeenkii marka la gaaray waxa uu bilaabay inuu adeegsado saacad lagu tijaabiyo uurka, waxaana soo baxday inuu positive yahay. waa uuna aamin waayay, dhowr jeer ayuu ku celiyay. sidoo kale waxaa soo baxday inuu uur leeyahay Sergey. subaxii markii la gaaray, xaaskiisa Diana ayaa fahamtay inuu isbeddel jiro. asagana waa uu iska indhatiray waxa jiro. waxa uuna u sheegay inuu uur leeyahay. Dianana way aqbali weysay. maalinta xigtay, Sergey waxa uu qoyskiisa ku martiqaaday gurigiisa asagoo fursadaasi ka faa'iidaysanayo. waxa uu u sheegay qoyskiisa inuu uur leeyahay, taasoo fajac iyo amakaag ku noqotay. waxayna u sheegeen inaysan macquul ahayn in nin rag ah uu uur yeeshto. subaxii xigay, Sergey wuxuu bilaabay inuu akhriyo buug ku saabsan uurka iyo sida loola tacaalo. waxa uuna garwaaqsaday calaamadihii oo dhan in ay ku wada kulmeen asaga. waxa uuna bilaabay inuu isku diyaariyo imaanshaha cunuga cusub, asagoo joojiyay cabista sigaarka. 4 bilood oo uur ah, Sergey waxaa soo muuqday calooshiisa asagoo aaday meelaha jiimka, waxaana loo maleeyaa nin cayilan. asaga iyo Diana waxay aadeen dhakhtar si uu baaritaan ugu sameeyo uurka Sergey, laakiin dhakhtarkii waa uu yaabay markuu ogaaday in Sergey uu yahay midka uurka leh. waa uuna ka diiday. sidoo kale dhakhaatiir kaloo badan ayaa ka diideen. laakiin maalin waxaa dhacday inay u tagaan dhakhtar lagu magacaabo Tikhonov. waa dhakhtar ku jiray shaqadani muddo 2 bilood ah asagoonan wax macaamiil ah aanan helin. waa uuna aqbalay inuu baaritaan ku sameeyo Sergey. maalintii xigtay, Sergey wuxuu ogaaday in saaxiibkiisa Zora uu khiyaamay, halkaasi oo uu faafiyey warka ah in Sergey uu uur leeyahay. warkiina ayaa sidii dab oo kale u faafay. Sergeyna wuxuu noqday mid la takooro meel walba uu tago. Zora ayuu u tagay Sergey, waxa uuna ku sheegay in uu khiyaamay maadaama uusan doonayn in la faafiyo inuu uur leeyahay. laakiin Zora ayaa ku qanciyay inuu lacag ka helayo. Sergeyna waa uu ka aqbalay. maalintaasi waxay ka dambeeyay, Sergey waa uu la qabsaday. waxa uuna bilaabay inuu TV waaweyn ah show u sameeyo, sidaasna uu lacag ku helo asagoo oo meel walba u tago kaamiradaha indhaha laga gelinayo. maalintii xigtay, dhakhtar ayay u tageen, waxaana la ogaaday inuu inan uur leeyahay. marka ay ka soo baxeen dhakhtarkii, kaamirada ayaa indhaha laga geliyey. waxaanuu hilmaamay Diana inay la socotay, asagoo hore u raacay dadkii kaamiradaha watay.
Zora iyo Serge lacag badan ayay ka sameeyeen TV-yada xayeysiiska iyo caanimada. taa beddelkeeda Serge waa uu hilmaamay xaaskiisa Diana. maalintii xigtay Serge Diana ayuu u tagay asagoo cafis warsaday maadaama uu hilmaamay uuna ka raacay lacagta iyo caanimada uu helay. sidoo kale ayadana waa ay ka aqbashay. durbadiiba Serge fooshi ayaa qabatay, hosbitaalkana ayaa loola cararay, waxaana u dhashtay inan. muuqaalkana meeshaas ayuu ku eg yahay daawade.